رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وحاول ليه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قرآنك الله سبحانه وتعالى هذا الكيسة إنه أخرنه، إنه لا صاحبنا، إنه كأقدوانه سو إنه كأقدواده مالنت آخره. إن aynu wuxuu ina farayo qaadano, wuxuu inaga reebayana ka dheeraano, iskuna dayno markasta inuu agteena yaalo saynu adduunkana ugu liibaano, aakhirana ugu liibaano, uguna badbaadno. waayo saynu wada ogsoonahay qur'aanka oo ay hogaaminayaan suuratul baqara wa aali cimraan ayaa iman doona maalinta qiyaamaha. haddii intiin adduunka aad joogtay aad ka ag dhawayd qur'aanka maalinta way ku doodi doonaan, laakiin intaad adduunka joogtay hadda dayacdid maalintaa kuma doodayaan. idan markaa tijaaradaas aynu u galno, qodobka koowaad waa in qur-aanka akhriskiisa aad loogu dadaalo. waanad wada garanaysaan fadliga ku soo arooray xarafka keliya ee qur'aanka marka aad akhriyaysid. sida oo kale salaada, waayo salaadu waa awal maa yuxaasabu alcabdu yowma alqiyaama. marka yowma alqiyaamaha la yimaado ee allah subxaanahu watacaala hortiisa saf la galo, waxa ugu horeeyay la su'aalayo qofka waa salaada. haday salaadu fiicnaato waxa kaloo dhan way fiicnaanayaan, acmaasha kaloo dhani haday laakiin xumaato acmaasha kaloo dhani way xumaanayaan. qodobka saddexaad ee allah subxaanahu watacaala inuu tijaarada kula gelayna waxa weeyaan infaaq fii sabiilillah. in allah subxaanahu watacaala waxa uu ina siiyey in aynu wax ka bixinno oo dadka u baahan ay naga hooseeya aynu siino, kasoo bilow sakadii, kasoo bilow sadaqaadkii kale ee kala duwanaa. saddexdaa haddii aynu ku dadaano, allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay qofkaasi wuxuu ila galay tijaaradiisaasina lan tabuur, wax halaagi uma sugnaanaya. ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur. allah subxaanahu watacaala ha inaga yeelo kuwa khayrka isku dardaarma, xumaantana iska reeba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.